xaqiiqdii qiimo badan ay noogu fadhidaa inaad waqtigaas dheerna siisaan. halkan waxaa lagu soo bandhigay wax yar oo mathal ah oo ka mid ah waxqabadka gobolka Banaadir, gaar ahaan qaybta caafimaadka. waxqabadka maamulka gobolka Banaadir aad u ballaaran yahay, waad ogtihiin. qaybtaanu marka waxay ahayd wax yar oo sida la sheegay aan ku shaki bixinaynay dadka adeegyada caafimaadka aan la soo wareegno ama aan dadaal u galno inaan la wareegnay horta ma ka shaqaynaynay oo ma naga go-need mase dana gaar ahaan ka lahayn, kaliya intaas inaan muujinay ay ahayd. agaasimacaddu iyo tiimkiisa waa uga mahadcelinaya si gaar ah dadaalkii ay u galeen. runtii agaasimacaddu aniga uma magacaabin meesha, isagoo agaasimaha caafimaadka ah ayaan u imaaday. keliya marka waxaan siiyey hiigsi directionist, marka directionskii ayuu mataqaana ku dadaalay ama hiigsigii aan u tilmaanay ayuu dadaal dheer u galay. wax badanna waa soo qabtay, wax badanna waa ka dhiman yihiin oo ay ka mid tahay arrinta fayadhowrka ama xagga public healthga activity naga dhiman waaye, waa bilowday laakiin wax badanaa nooga dhiman. ma aha caafimaadka keliya, qeybaha uu ka kooban yahay maamulka gobolka Banaadir ayaan hay-ad walba hiigsi siinay. cid gaartayna way jirtaa, meel fiican waa gaarsiisay. cid aan gaarin oo gaari weydana way jirtaa, laakiin cid oo rajo dhigtay ama fashilatay ma jirto, alxamdulilah. maxaa yeelay ciddaan u aragnay inay gaabinayso waa guubaabinaynay, waa garab istaagaynay si ay u guulaystaan. marka inay guulaysan waayaan ama ay gaari waayaan kuma ceebeynayni, inay gaari karaanan u sheegayni. marka waxaan matelnaa yani Banaadir, waxaan matelnaa caasimadii. in la yiraahdo yani capacity ma leh ama awood u male inay mataqaanaa waxaas gaaraan, waxay ceeb ku tahay dalka oo dhan ay ceeb ku tahay. maxaa yeelay muqdisho waa caasimadii dalka. waad ogtihiin maba jirin tacliim alcaali ama marka tacliin sare ma jirin Soomaaliya oo dhan oo aan Muqdisho ahayn. marka meeshii yani teknolojiyada iyo cilmiga iyo dikriyada loo soo doono lahaa capacity ma leh, ee baadiyaha capacity leh, ooga wax lagu qoslo waa taas. marka tacliintu halkaanay ka faaftay, way socotay. maanta alxamdulilaahi halkaan waa guulaysatay oo gobolladii ayaa jaamacada ka furan yihiin. ma jirin marka meesha keliyahoo dalka oo tacliim alcaali ama tacliinta sare loo yimaado halkaanay ahayd. wixii ka horreeyey burburka, wixii ka horreeyey markii burburka hadda kasoo kabashadiisa ay bilaabatay, ayaa mataqaanaa steedyada ama dowlad goboleedyada iyo dugsiyada sare, xitaa dugsiyada sare ku yaraa, waad ogtihiin. dugsiyada sare iyo jaamacaduhuba ay bilowdeen. gobollo badan ama steedyo badan oo ilaa hadda aan jaamacada lahayna way jiraan, waad ogtihiin. marka maantay professoradii ayaa fadhiya, soo gaabiya dhihi mayne gaarsiiya tacliinta. haddii aad tihiin yani professoradii caafimaadka iyo haddii aad tihiin professoradii cilmiyada kala duwanba. maxaa yeelay bulsho waxbaratay ayaa dal dhista. wuu ku dhawaajiyey doctor Mahad xoogaa hay-ad kasta waxa ay hayso marka la yiraahdo
laga dadejiyo culayska laga fududeeyo xogaa waxay dareemayaan yani anaaniyad iyo xogaa ku dhaganaan way jirtay laakiin mataqaanaa si xigmad ah oo wanaagsan oo ayaga laftoodu ay dareemayaan yani in wax lala fududeynayo oo aan wax laga xoogay ayaa loogu tabliiqinayay sidaas ayaana loogu guuleystay hadday ahaan lahayd caafimaadka iyo waxbarashada intaas kuma eka yani adeegyada bulshada mas-uuliyaddu ay naga saaran tahay qaybaha kale ayagana mataqaana waa aadi doonaa laakiin labadaas aan arkaynay labada ugu muhiimsan inay yihiin oo aan xoogga saarnay labadaba marka meel fiican ay marayaan waan rajaynayaa bahda waxbarashada ayaguna inay maalin sidaan oo kale ay bulshada ugu soo bandhigaan muddadii ay jireen wixii ay qabteen runtii wax badan ay ayaguna qabteen ujeeddadaas aan xoogga u saaraynay waxay ahayd yacni bulshada xaafadaha fogfog degan bulshada danyarta ah yacni inay helaan adeeg public ah oo bilaash ah oo yani halkooda ay ku helaan ayaa ujeeddadu ay ahayd aan ka lahayn ujeeddo kaleo annaga aan ka lahayn ma jirin haddii aan ujeeddo kale ka leenahana maba ku guuleysaneenba runtii marka maxaa yeelay dowladda federaalku waa dadaalay hay-aduhu waa dadaalayaan laakiinse waa laga yaqaanaa meesha ku habboon waxaan adeegan looga baahan yahay marka yani regional level ama heer gobolna kuma haynayne district level usii gudbaysaa ilaa uu qofka oo guddoomiye waaxeedka uu ka dareemo waaxda iskuolka ku yaal iyo MCH-ka waaxda ku yaal inuu asaga mas-uul ka yahay uu u adeego oo habeenkii markay islaam xanuunsato ama cunug xanuunsado ama islaam foolato uu dareemo inuu asagu mas-uul ka yahay oo ku hubsado dhakhtarka ama umulisada oo ku hubsado meesha marka aan inaan waa taas oo aan u socono waana gaaraynaa biidnillahi tacaala marka waa wadnaa annaga shakina noogama jiro mana cabsanayno inaan yani ka mira dhalino hadafkeena isaga maxaa yeelay waxaan haysanaa brofesoradan dadkaan wax bartay oo ahlo beledkan ah oo garabkeena taagan marka sabab a capacitydeen u yaraato ma jirto marka annagoo aqoontiina iyo kartidiina iyo dadaalkiina ku tashan ayaan hiigsigeena muujisanaynaa waana ku soconaynaa yani muxuu yidhi agaasimaha wuxuu yidhi xoogga isii marka xoogga isiyaa noo joogta aniga xoogga isii marka abwaanku xoogga u isiinaa dhakhtarka xoogga u isiinaa brofesorka kale xoogga u isiinayaa bulshadana xoogga isiinaysaa marka inaan gaari waayo maba aha marka halkaasaa u soconnaa dalkan wasiir cabdilfataax uu ka dhawaajiyey dalkan yani dadkiisii waa joogaahe way yara caajisan yihiin inay caajiska ka baxaana rabaa oo ay lahaansho dareemaan dalka annagaa leh dadkana ay nagaa leh yay tahay cidda aan la sugayno inay noo horumariso waa inaan annaga horumarsano waa inaan kuweena dayacan aan daryeelano annaga oo bulshadeennan aan gaarsiino waddankeennan aan gaarsiino waad ogtihiin dhismooyinaa socda magaalada waa dhismaysaa yacni qashin badanaa yaalay ma yaalo waa laga shaqeeyey yani waddooyin badanaa burbursana waa la dhisay yani ma aha waxaa laga shaqeynaya caafimaadka keliya qayb kastoo bulshadu u baahan taha ayaa laga shaqeynaya marka yani adeegyada bulshada amba ambulansooyinkii ama dabdamisidii way jiraan challenge xoog leh oo xagga dhaqaalaha ah laakiinse yani ma niyad jabayna waa soconaynaa ilaa aan ka gaarno in yani waax kasta oo degmo kamid ah ee ambulansooyin iyo dabdamisi ku filan ay yeelato marka higsigeenu kaas waaye marka dhaqaatiir ku filan iyo mataqaanaa public health ku filan iyo mataqaana ambulance ku filan iyo mataqaana dabdamis ku filan yani biyo ku filan koronto ku filan yani xaafad kasta meeshaan u socono taas waaye waana aaminsanahay inaan waqti dhow gaarayna biidn illah magaaladan marka
يعني 3 مليون ولا سكيرة لو كونيو سجال 3 مليون على شيء ولا 3 مليون على شيء نعم مركا 3 يسجال هذا بلشوا وبدن تهاي مركا يعني وحي كده منا سياسيين تدا رادينا يا أو حاجة سياسة دا وقدر من وحي عافمات كوقدر منا واجوغان بهذا عافمات كجوكته وحي تعليمنا كما بدنا هذا تعليم لجواي مقدشو إيه حمد فيلم إن سومالي ملك اللي رادينا يو واسدعي كرتا إن وضمدان حاجة تعليم تنجه الرأي عن أحري سنة أو كسوق الرسل وسورجل تاسنا مركا عيدنا دادال كذا قلنا وعيدو كل رأي يقرأ هذا إن بدن عن ربع سجار أنا هو مدعيو يعني وسارد عافماتك إيو لا تلياش هذا إيو جودهان لقاتيرتا أرنتان أدي وسو شقي أو قرب استاجي ما بقول قبل كبنادر واحد يسعى عافماتك جودهان مركا يعني ذي والسلام عليكم.